الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة في الله، نبينا صلوات ربي وسلامه عليه waxaa laga wariyay oo xadiis saxiixa ku sugan inuu yiri saddex ruux arrinkooda ha warsanin, ha weydiinin, yacni khasaarahoodii halaagoodu bannaanku yaalla waa iska cadyahay, wax la isweydiiye maaha, waa qorax soo baxday. saddexda ruuxi halaagoodu xaqiiqaya adduun iyo aakhiraba inay khasaareen. ka koobaadii nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam waa nin ku haysta allah tabaaraka wa tacaala sifaadkiisa uu khaaska la yahay, sifatul kibriyaa, kibirka iyo cadamada iyo sifada cizada. ninkii ilaahay ku haysta ku haysashada waxaa laga wadaa ilaahay bay khaas leeyihiin, adiguna inaad sheegato isla weynan iyo kibir inaad sheegato waa ruuxa koobaad. waa sababtu waxa weeyaan allah tabaaraka wa tacaala asaga keligii baa leh alkibriyaa, cizigana asaga keligii baa iska leh. cidduu isagu cizeeyey oo addoommadiisa ka mid ah kadib cizo leh. haddaad waxaadan ahayn marka iska dhigto, waxaadan ahaynna aad ismooddo, meedaadan gaadhsiisnaynna aad isgaadhsiisood is-afuufto, ilaahayna tabaaraka wa tacaala wixii gooni u ahaa ee uu lahaa aad ku qabsato oo aad sheegato, shaki kuma jiro inaad halaagsamayso. qadarkaagiiyo tabartaada garo, inaad addoon tahay garo, inaad miskiin tahay ictiraaf, inaadan shalay jooginoo lagu keenay adigoo qaawan ictiraaf, inaadan maanta waxba ahayn qir oo ictiraaf, in berri waxaad noqon doonta aadan garanaynin ictiraaf. waxba yayna ku wareerinin kursiga iyo boqortooyadu, xoolaha iyo hantidu, caafimaadka iyo ladnaantu yaysan kulu goynine. innamaa anta cabdun daciif, addoon waxaa tahay tabar daran, miskiin ah. seed ku kibraysaa? nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi kama fii saxiixi muslim ayaa wuxuu yidhi ruuxii qalbigiisa ay ku jirto wax yar oo darra ah, darradu waa quraanjada yaryarka ah ama waxayna ishuba qaban karin waay, qadar intaa la ego kibira ruuxu qalbigiisa ku jiro ilaahay jannada ma geliyo. ruux janno loo diidayna naar baa hoy u ah. nin baa wuxuu yidhi rasuul ilaahayow, ruuxu wuxuu jecel yahay inay maradiisuna quruxsan tahay, kabihiisuna quruxsan yihiin. ruux walba waa iska jeceliyo qalbiga waa kaga jirtaa isqurxi oo dhar quruxsan iyo kaba quruxsan iyo qaado. nabigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi macnuu saas maaha. allah tabaaraka wa tacaala waa quruxsan yahay, quruxdana waa jecel yahay. kibirku ma aha macnaha inaad ziinada iyo quruxda ilaahay kuu banneeyey inaad qaadatood isqurxiso, kibir maaha. qul man xarama ziinata allahi alatii akhraja licibaadihi waatayibaati min alrisq, allah taa banneeyo addoommadiisa u fasaxay. kibir maxaa la yidhahdaa marka? nebigaa qeexay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, alkibru batru lxaq wa qamtu nnaas. kibir waxaa la yidhaahdaa in aad xaqu markuu kuu caddaado aad diiddo, isla weynaato, isweynaysiiso. ayad qur-aan ah, xadiid nebi, ijmaacii ummadda,
xaqii baa kuu caddaanid bannaan ku yaallaa markaasaad iskibriso intaad isqaaday baad diiddoo tidhi maya kuma jiro kibiraani baad tahay kibiraanigu waa ninkaa xaqa cad diidaya waay kibiraaniga labaadii waxa weeyaan waa ruuxa dadka yasaya dadku xaqiraa dadku yasaa wuxuu rumaysan yahay inuu dadka ka sarreeyo waa iskala weyn yahay inuu nasab kaga fiican yahay abtir inuu xoolo kaga fiican oo kaga sarreeyo inuu kursi iyo jago kaga sarreeyo inuu magac iyo shuhro kaga sarreeyo waxay u la tahay inuu dadka ka fiican yahay ama qaar ka midaba ka fiican yahay hada huwa aynul kibri kibirani waay ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala adoomadan waxaanu u qaybiyey isagu kala siiyey midba qayb ka siiyey midna qadiyey allah baa maamulay tabaaraka wa tacaala adigu ma aadan keensanin waxaad ku leedahay baa iska yar allahna tabaaraka wa tacaala in badan oo tabar yar oo masaakiin ah ood hoos u fiirinayso baa ilaahay agtiisa ka karaamo badan rubba ash'atha aghbar law aqsama ala allahi la abarrah dad waxaa jira iska masaakiin ah madfuuc bil abwaab ay ka muuqato diiftu ka muuqato iska rafaadsan basaas fara badani ka muuqato irida aan laga furaynin ilaahay agtiisana karaamaduu ku leeyahay hadduu dhaarto maanta yidhaahdo walla inay sidaa noqon alla waa u rumaynaya tabaaraka wa tacaala siduu sheegay bay noqonaysa marka miisaanku ma aha xoolaan haystaana ma aha magac baan leeyahayna ma aha kursi baan ku fadhiyaa ma aha miisaanku waa miisaan kale wey sidaas daraaddeed inaad iskibristo dadka yastood xaqirto wax ilaahay ku siiyeyna aad u sababsato oo ilaahay dheeraad ku siiyey ma aha arrintu inaad hoos isu dhigto waay nabigeennu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxii kor isu qaada ilaahay baa dhulka dhiga waa sunno ilaahay waxay ku timid nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qaalin wuxuu lahaan jiray uu gaadiidoo uu fuuli jiray qaalin aad u dheereeyuu ahaan jiro lagama hormari jiray nin reebaadiyo acraabiya qaalin intuu la yimid buu ka dheereeyey qaalinkii nebiga sal alla alay wasalam saxaabadu waa xanaaqeen maantaaba qaalinkii nebiga laga dheereeyey macquulba maaha markaasaa nebigu wuxuu leeyay sal alla alay wasalam wardaaya buuhi shay kor isu qaada oo meel isgaadhsiiya ma jiro ilaa ilaahay hoos buu u dhigaa tabaaraka wa tacaala wiilis waalaba waabiyaa hela yacni saad u nagnag leedahay sunanka ilaahay waxa weeyaan in dhulka lagu dhigo waayo leanna waxaadan lahayn iyo meelaadan gaadhsiinayn baad isgaadhsiinaysa kibirka marka iska daayo hoos isu dhig cagsi waxa ah man tawaadaca lilaahi rafacah ruuxii ilaahay dartii isu liida hoos isu dhiga ilaahay baa kor u qaada magaciisa maqaamkiisa adduunkiisa aakhiradiisa ilaahay baa kor u qaada saas daraaddeed qadarkaaga garo oo miyaynu xaq u leenahay walaalayaal oo miyay gar nugu tahay inaan isweynaysiinnoon qadarkeenna garan weyno u fiirsada asalkeenna waxaan ka soo jeednaa dhibic mani ah oo uraysaynu ka soo jeednaa hadda aynu nool nahay oo xoog badan nahoon faanaynoon ordaynana wax urayaynu caloosha ku wadannaa akhiiran marka ugu dambaysana bakhti urahayoo qabriga loo jiida umbaad noqon doontaa war xaggee kibir kuu yaallaa billaahi calayk xaggee kibir kuu yaallaa isla weynan kuu yaallaa maad isgaratid sidaas daraaddeed allah tabaaraka wa tacaala khasiisadiisa iyo sifaadkiisa ciddii ku qabsataay waa halaagsantay qodobka labaadii waxa weeyaan ama ruuxa labaadeen isweydiinta lahayn inuu halaagsamayahay nabigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa ruux ka shakisan ilaahay amarkiisa ilaahay jiritaankiisuu ka shakisan yahay waa sindiiq mulxid ah oo ma ilaahay jiritaankiisaa laga shakin karaa allah uu tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi afillaahi shak war ma ilaahay baa shaki ku jiri kara ma suurtagal baa ilaahay jiritaankiina iska shakido faatiri samaawaati waalard dhulkan aad ku dul taagan tahay isagaa abuuray samadan ku hadhaynaysay kaa koraysana isagaa abuuray
allaha buuraha taagay oo samada abuuray oo dhulkan fidiyey oo badahan sameeyey oo adiga laftaada sidan isu ka saaro ku rakibay miyaad ka shakin kartaa badalkaad isaga ka shakinayso naftaada ka shaki waa ruux ka shakisan dhulkan jiritaankiisa samadan jiritaankeeda qorraxda jiritaankeeda isaga jiritaankiisa ka shakisan waa markaad ka shakido allah bimacnaa iska shakiyo waa maxaa yeelay sida quraanka kariimku inoo sheegay suurtagal ma aha shaygu inuu iska yimaado asagoon wax keenay jirin waa iska yimid wuu iska dhacday waan iska abuurmay ma dhici karto waxaan kaloon suurtagal ahayn inaad adigu lafahaaga abuurtood iskeentayna ma dhici karto sababtu waxa weeye shay aan jirin isma jirsiin karo isagu waxaa soo hadhay marka keliyeeta in uu jiro cid jirsiisay oo abuurtay makhluuqaadkan oo keentay yay tahay allah tabaaraka wa tacaala yaa kale am khuliquu min ghayri shay'in am humul khaliquun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinuun jiritaanka rabbi tabaaraka wa tacaala marka shaki ma geli karo ruuxa ka shakaysani waa axmaq aan caqli lahayn oo garaadku iyo garashadu ka maqanta mar labaad dadka qaarkood waxay ka shakinayaan ilaahay maamulkiisa iyo kownkan inuu leeyahay oo waxa shaydaan qalbigooda gelinaya ilaahay kownkan waa lala maamulaa ayaduna wax jira meehe aqligaaga markaad ku noqoto kownkan sida u nadaamsan ee isku duba dhacsan ee sidiisii u socda ee aan isbedelin laba gacmood ma wada maamulayaan hal baa maamulaya hadday laba wada maamuli lahaayeen way isku qabsan lahaayeen kadibna way isku layn lahaayeen kadibna kownkan oo lala kala tagay oo la kala jiitay baynu arki lahayn dhulkii oo dhinac u dhaqaaqay oo samadii mid la tagay oo sida bini aadamka iyo makhluuqaba aynu aragno markuu awood leeyahay laba isku awooda markay meel ka taliyaan laabudda waxa weeye inay islaayaan islama jiri karaan oo meesha ma wada wadi karaan sidaas daraadeed allah tabaaraka wa tacaala kelinimadiisuna waa waxaan shaki ku jirin waxa kaloon shaki ku jirin mar haddaad intaa qirto kownkan markuu ilaahay abuuray bilaash uma daynine nidaamkii lagu maamuli lahaana waa soo dejiyo rusulla waa soo diray kutubna waa soo dejiray maxaa yeelay hadduusan soo dejinin wixii wuxuu iska noqon lahaa bilaash marka seebaad ilaahay arrinkiisa uga shakin kartaa amarka alle kiisa kawniga iyo kiisa sharciga wax laga shakiya ma warkuu kuu sheega waa run wax soo socda hadduu inoo sheegay shaki kuma jiro wax tagay hadduu inooga warramayna shaki kuma jiro hadduu ahkaam inoo jideeyena cadaalad bay ku salaysan tahay sidaas daradeed ruuxa ilaahay amarkiisa ka shakisani asaguna waa halaagsamay laana ama waa munaafiq ama waa gaal allah muuminiinta wuxuu ku tilmaamay inayna shakiyin thumma lam yartaabu qalbigooda shaki ma galo ruuxaasina waa ruux halaagsan laana waxa la rabaa iimaankeenna inaynu ku dhisno yaqiin hubaal aan shaki ku jirin صح bini aadanka qalbigiisa marmarka qaarkood waxa ku soo dhacdhacaya wax la yiraahdo wasaawis ama khawaatir ama hadithu nafs waxyaala qalbigaaga ku soo dulduulaya jira oo aadan qaadanin oo dan cabin oo rumaynin oo aadan go'aansanin oo qalbigaagu uusan ku qancin laakiin kugu soo dulduulay taasi waxa weeyaan qabasho ma leh haddaadan ku hadlin ama aadan samaynin lagu qaban maayo xadiiska nabigu sidaasuu ku cadiyay salawaatu rabbi wasalaam calayh wasaawis shaydaan way taa shaki ma ah laakiin shakigu waxa weeye mabaadidii asaasiga ahayd jiritaankoodii iyo saxnimadoodii iyo khaladnimadooda inuu shaki ka galo wa hada huwa al-kufru bi'ayni waa gaalnimo taas ninka saddexaad ee ilaahay tabaaraka wa tacaala uu halaagayeen la isweydiinin halaagiis waa ruux ka quustay ilaahay naxariistiisa inta badani waxay ku dhacdaa dadka dambiyada badan ee dunuubta qasta shaydaanku marka hore dambigu kugu ridayaa markuu kugu hubsado dambiga ku geliyo dhinac kale haddana ka soo galaya wuxuu ku leeyahay ilaahay ku dambi dhaafi maayo khalaas way ku dhamaatay hadduuba kugu qanciyo ilaahay ku dambi dhaafi maayo way ku dhamaatay oo ilaahay naxariistiisa ka quusato bas
ruux ilaahay naxariistiisa ka quustay waa ruuxay u dhammaatay sidaas daraaddeed baa rabbi tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu igu nugu leeyahay addoommadaydii xumaanta iyo dembiyada sameeyeyow naftooda ku xadgudbayow naxariista alle ha ka quusanina laa taqnatuu min raxmat illaah maxaa yeelay ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembiyada waa dhaafaa dhammaantood waa dhaafaa dembi uusan ilaahay dhaafin ma jiro shirki baa u weyn dembi la galo hadduu addoonku ka soo noqdo ilaahay waa dhaafaa saas daraaddeed baa aayadda ka dambaysa alla wuxuu yidhi wa aniibuu ilaa rabbikum wa aslimuu lah soo noqo iriddu waa kuu furanta allana towbadaada waa ku farxayaa waana ku saamaxayaa ha isdhihin haddaad khaladkii gashay khalad kale ha sii gelinoo ilaahay kuu dembi dhaafi maayo nabiyullaahi yacquub calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam markuu wiilashiisa la hadlahayay fii suurati yuusuf alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala inooga sheegay nabiyullaahi yacquub inuu wiilashiisa ku yidhi kactaga oo yuusuf soo raadiya fataxasasuu min yuusufa yuusuf soo gooba walaa tay'asuu min rawxi illaah ilaahay naxariistiisana ha ka quusanina innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqawmu alkaafiruun ilaahay naxariistiisa waxaa ka quusta oo keliya oon waxba ku lahayn dad gaala ah inta aadan gaalnimo gaadhin naxariista ilaahay tabaaraka wa tacaala waxbaad ku leedahay maxaa yeele naxariista rabbi waa ka guda weyntahay cadaabkiisa cadhadiisana rabbi tabaaraka wa tacaala waxaa ka guda weyn ridihiisa iyo naxariistiisa ka guda weyn cid walbay waasic u taho rabbi ugu talagalay tabaaraka wa tacaala sidaa daraaddeed soo noqo nabiyullaahi ibraahiimna calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markay malaa'igtu ugu bishaaraysay wiilka isagoo islaantiisuna madhalaysta awday tahay asaguna da'ba yahay ayaa wiil loogu bishaareeyey markaasuu wuxuu yidhi keef say ku imaan kartaa waxay ku dhaheen ibraahiimow ma naxariista rabbi baad ka quusatay markaasaa nebi ibraahim wuxuu yidhi man yaqnatu min raxmati rabbihi ila addaalluun oo yaa naxariista rabbi ka quusta dad lunsan mooye ma cid kalea naxariista rabbi ka quusata mahma kaana alamru quusad ma jiro wax kastoo doonayso mataalibtaada ka mid ah jidkeeda mar ilaahayna kaasho tala saaro ku kalsoonow laakiin marnaba haysdhihin waxaani ma suuroobi karo dunuub haddaad gasho si kasta ay tahayna soo noqo ilaahay u toobadkeen tabaaraka wa tacaala waa arrin halisteeda leh inaad heerkaa gaadhood naxariista rabbi ka quusato waxaa dhanka kale iyadana ka soo horjeeda in aad acmaashaadii iyo daacadaadii iyo khayrkaaga intaad ku kadsoonto aad ilaahay makrigiisa aamin ka noqoto iyadana waa dhanka kale innahu allah tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo sheegay makriga alle tabaaraka wa tacaala waxaa aamin ka noqdo keliya dad khasaaray marka labada khad midna ha u dhicin dhanka inaad naxariista ka quusatana ha aadin dhanka inaad ilaahay makrigiisa iyo cadaabkiisa isdhigatood aamin ka noqotana ha aadin khadka dhexdhexaadkaa mar waa inaad cabsi qabto dadaalna qabto rajana qabto rajo qab cabsina qab khadkaasaa la rabaa in lagu socdo saddexdaa arrimood marka waxaa la doonayaa inaynu iska ilaalinno sifaadka rabbiya khasaa'istiisa ha ku qabsanin hana isku dayin inaad sheegato allah amarkiisa iyo sharcigiisa shakiyuusan kaa gelin yaqiini oo siday tahay u rumee si kasta haddaad khalad iyo dunuub u leedahay ilaahay naxariistiisa ha ka quusanin ee dadaal la imow safxa cusub furo ilaahayna u toobadkeen tabaaraka wa tacaala صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا على ما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك